Nuur Macalin Ibraahim. Waxaan jiraa 25 sano, waxaana ka imid Shabeellada Hoose. Sababta aan ugu biiray iyaga ayaa ah in qabiilkayga laga doonayo 10 ruux oo waliba ka socota lafta qabiilkeena. Waxaan ka mid ahaa 10kii la xushay, taasina waa sida aan ugu biiray. Xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa si aad ah ii aaminay. Sidaasi daraaddeed, markii aan hubkayga iyo rasaastii u dhiibay, ayaan u sheegay inaan ka soo laabanayo deegaan noo dhow halka aan joognay. Kadibna waxaan wacay dad ka tirsan qoyskayga, kuwaasi oo dowladda ka tirsan. Waxaan u sheegay inaan doonayo inaan soo baxsado, waxayna ii sheegay inaan la kulmi doono waqti kasta. Waxaan u soo goostay inaan dib u helo xorriyaddayda. Run ahaantiina ma jirin meel aan aadi karay anigoo aan sidan hub, isla markaana diyaaraduhu maalin kasta madaxa naga dulmarayaan. Mana arkayn mustaqbal kale oo nafteyda helayso, maadaama 6 sano aan ku jiray nolol aan wanaagsanayn. Waxaan u malaynayay in dowladda ay i waraysan doonto, ayna ii ogolaan doonto inaan ku noolaado magaalada. Waxaan xaqiiqsaday markii aan halkan imid in ay ahayd inaan qayb ka noqdo barnaamijka dhaqan celinta ugu yaraan 1 sano ka hor intaanan bulshada laygu sii dayn. Marnaba laylama dhaqmin si ka duwan dadka kale, sidaan kuu sheegay ayay sameeyeen. Mararka qaar madadaalo waa inaan helnaa, balse waqtiyada qaar waa in la dagaalamaa oo rasaasta la ridaa. Mana u malaynayo in qof kasta uu helayo madadaalada. Waxaan kula talin lahaa xubnaha kale ee Al-Shabaab ka tirsan inay garaadkooda iyo maskaxdooda adeegsadaan sidii ay kaga soo tagi lahaayeen kulaylka, ayna u imaan lahaayeen qabowga, oo aan kala jeedo inay halkan yimaadaan. Fadlan ka faa'iideyso xarumaha dhaqan celinta dalka adigoo lagu bari doono xirfado aad ku shaqaysato. Haddii aad doonaysid inaad iskaga soo baxdo Al-Shabaab, fadlan la soo xiriir nambarkan 06923418.